kadib Diogo Godin. Inter Milan ayaa xaqiijisay in ay si xor ah kula soo wareegi karto xidiga qadka dhexe ee kooxda Bayern Munich Arjen Robben. qaar kamid ah ila wareedyo ku sugan dalka Talyaaniga ayaa sheegaya in Diogo Godin uu heshiis hordhac ah la sii gaaray kooxda Inter Milan si uu ugu biiro kadib marka uu dhamaado qandaraaskiisa kooxda Atletico Madrid dhamaadka bisha June. sida laga soo xigtay website-ka Internazionale, kooxda reer Talyaani ayaa heshiis hordhac ah la gaartay markan waayeelka kooxda Bayern Munich ee Arjen Robben si ay u helaan adeegiisa. 35 jirkan ayaa la qorsheynayaa in uu dhacayo heshiiskiisa kooxda Bayern Munich bisha June ee bartanka sanadan aynu ku guda jirno. Arjen Robben ayaa ku sugan kooxda Bayern Munich tan iyo sanadii 2009 isagoo horey ugu soo ciyaaray dhowr kooxood ay ka mid yihiin Real Madrid, Chelsea, PSV Eindhoven iyo kooxda FC Groningen. waxaa la finayaa in mar kale uu dib ugu laaban karo dalkiisa hooyo ee Holland. hase yeeshee Arjen Robben ayaa la fahansan yahay inuu haatan ku fikirayo tijaabinta tartanka cusub ee garoonka San Siro.